هذا ما أنت واحد شو قام قال لي عيال قردة عقفتنا وعقفتي عيال قردة كان هذا الشقاقة دي يريد محايتوي قصاص هذا ربعي شيء ثاني سمرات ولا شيء وهكذا براي تانجي قح شيء ده أساس بانك لا داعي وجهته وكار أساس لا داعي على أساس كذا داعي تانك بيها هوي الكاس تانكاس بيها أنا وعورات بكجاري ها وجهتان تانكاس قاري مرة تانك كحم هذا بيده وجهته ضد شوي مشين كلفتي سا كل واحد قاري على جيابه وجهته عرفتي كشقيني سي تكدن على كده عايش قاعد كده ماشي ممكن تقول على ما أنت وأنتاس بسوف تري أو سوق الجوبيسي برساب كايمي قبل كساحل وحكلو يمي محيط مدح فربضان الكن وجه دا وددكي شعب قاعد كنا مقالة كعب عيل كرد لب حواكن مع عيال كلا دد فربضان بعد ماشي كسر قلب قلي ما أنت وحلوش هذا عيل كرد وكاس مساعد سكينة تسوي الله عبتي يا بطينا وهالكاس مردونا وحن تقدرنا تكدي إن شاء الله هدي الله يقولون هاي ما تعرفيش أيام ما أنت بحياتي أنا ما شوني وحاصل إنه ونيسو كنت بتونا إن شاء الله بإذن الله الكريم المقال القردة واتاس تاس التي كاسنا خلي أرتي دانكي رني كعبية وتذكر ماشوا أبلو يلا الكبير هنا واتاس والعيل في كعبية مكانها وكانوا بيه وعيل كبير عيل قرد الله بح ولا رثا عيل كبير ماشي بين عيل بيض بكول ها عيل كم هالكاس يلا وهالكاش روح بعد كروح كسيا وبيها مكان يدكوا ماشي يسوفتك بدل وسق سبت كسوسان oo waxa ka soo qaadaysa ceelka ka soo qaadaysa dadka ay keenaysa ma sha Allah horumar baa laga sameeyay horumarin bir hore alxamdulillah wallahi waa fi wanaagsan halkaana waa bi maqaayadii iyo dukaamadii iyo kamerada ku haystay gaarigan wax gaareen ba gaarigan waa gaarigii la gruusalka hay isaguna cagafta isku mar ay wax gaareen cagaftii waa taas horaan idin soo daawisiiyay gaarigiina waa kan gaarigana waa gaarigii isaguna meesha joogay ee shaqada waday waa la dhibaateeyay waxa gaarigii rasaas baa la dhacay ragaadu aqli xun baa yimi oo aan aqoon ku jirin oo isku dayay in ay ummadda ka shaqeynayso horumarka iyo nidaamka ayaa dhibaatada aan ka dhacay adigu arrimi waa la hagaajiyay wax fiican baa ka soconaya alxamdulillah qaladna qalad masaxo arrintaas waa soo gabagabeeyay nabada macaan waan sawray waan saaray si nabadgelyo ah baa wixii ku dhamaatay alxamdulillah rabbil caalamiin waa sidii awalba caadada iyo dhaqankeena ahaan jirtay xaalad kasta oo timaada oo la ishaahdo maanta meel xun ka baxdayba alxamdulillah rabbil caalamiin waa mid ay reer Soomaaliland ku caan baxeen in ay markiiba ku soo afjaraan si nabadgelyo waa nimco iyo hibe Ilaahay gaar u siiyay reer Soomaaliland waxaan Ilaahay ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed kalena in Ilaahay aqliga dad fara badan oo ku badan yahay Ilaahay siiyo gabi ahaan baa arrintaas way dhamaatay magaaladii iyo horumarkii iyo wixii ka soconayay ee ummadaas oo dhan iyo ummadda wax magaaleenayo dhanna insha Allah wax rajaynaynaa inuu sidii sii socdo badii quruxda badneed Ilaahay ugu manaystay wata nimcadaasaynu haysanaa waa ka baahannahay nimcadaasaynu haysanaa oo ka baahannahay horumar baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay qof kasta oo wax soo kordhinaya waxaynu u baahannahay qof kasta oo wax soo kordhinaya waxaynu u baahannahay qof kasta oo faa'iido keenaya hal qof wax tarta qofka hal qof faa'iido wax karta keena waxbuu inoo taray se waxa ayaan daraa dad in aynu taagnaano qof mid kasta oo wax qabanaya inaynu ka hor nimaadno ayaan daraa mid kasta oo ummadda wax faa'iideynaya ayaan daraa inaynu ka hor nimaadno insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aynu noqono dad xagga horumarka wada dhaqaaqa dhamaanteen oo haddii reer Soomaaliland banahay dhamaanteen inaynu xagga horumarka u dhaqaaqno xagga nabadgelyada iyo xagga aqliga wanaagsan ee Ilaahayna wada dhaqaajiyo Ilaahay ka baryayna de buurahaas ku deyrna wada jeedaan waxaas waa buurta sarti buurtan magaceeda maxaa loo jeedaa Maxamed Raawo buurtan
buurtan xogeeda shishana xagal baa ku taala xagal buurtaas ka sii dambaysa buurtan ceel gardaa la yiraahdaa ceelkii balligiina ceelkii maxay tahay ceel gardana halka tamuuxda cad ayuu ku yaalaa tamuuxda cad miya garanaysa tamuuxda cad waa kaash waa la kala iibsadaa waa ciid aad u macdana oo qaaliya maraakiib iyo doonyo iyo ayaa u baahan maalin walba naga iibiya waxa dhalo la yiraahdo dhalo ciidan maxaa laga sameeyaa maxamed waxa la wixii quraarad ba wixii quraarad ba ayaa laga sameeyaa haday dhalooyinka cadarka tahay haday maxaan ku rahaa waxa dhalaba la yiraahdo waa aragtaan cid ka soo dalbato ciidaas laga sameeyaa cid ka soo dalbato iib ku raadinayso aragteen Soomaaliyadii meeshii loo oran jiray bacad celinta shalambuud waa bahashii haysatay ma Chinaha aad u qaadan jiray صح ما شاء الله رجعنا نكنا مقعدنا هذا اسمه وحويان ورجع ان حيوان آتك أقونت بدن وقوله كان جرع الصدى دقنا يلا هشك فرا بدن يا وحاله معايا هتي وحله هذا اسمه سوى ما اسمه حسين سعيد باللي هذا محل قلنا اسمه قرشمله هذا اسمه قرشمله maxaad nooga faa'iiday kartaa nimcada meeshan ku duugan maadaama aad aqoon dheer u leedahay arrimaha xeebaha waa u jeed iyadii baa aad horta ma sha Allah صح barafkiga soo qaatay صح cilmiga wasana markuu maxay ilaahay dakhliyo u dhiibo berberan صح wax soo saarka ugu badan waa kan badiyay aad bay u baxaysaa bariga waa kan buuri waa kuwan صح علاش واقوان صح دي عاطبي وحويه نمعدي الى وقت بدي بريبه يا ما شاء الله maxaad kula talin lahayd dadka qurba joogta iyo kuwa dhaqaalaha haya maxay tahay baax mushtarigaaba maxaad uga faa'iideyn lahayd oo kula talin lahayd halkan inay ka qabtaan صح يا بسم الله الرحمن الرحيم magacaaga horta magacayga waxa la jaamac maadin cad jaamaadin adigu maxaad khibrad aad nooga faa'iideyn kartaa xeebaha maadaama anagu nahay dadkii hawdka sarakay baan aqoon badan wahayd maxaad dadkana ugu baaqaysaa inay dadku ka faa'iideystaan oo faa'iidooyin aad ku ogtahay oo ilaahay nimcooyinkan ku duugan maxaad uga faa'iideyn kartaa dadkana wala tala ka siin kartaa waxa aan uga faa'iideynayaa waa aragtaayo waxa isku dhow berigii daaqasatada ee xoolaha nool iyo caadkii iyo caanaaba lahaa iyo kalluunkii iyo badii baa qarkaysa saaran ma sha Allah wadankaisa awrta laga dhaaminayo ariyaha daaqaya arkaa shada degan صح wadadu halka waad aragtaa badii oo aan inoo jirin oo ay laashashkii tuban yihiin kalluunkii laga gurayo badisa jeeda halkan aan joogno inta yaro aan qalalaasa ay ka dhaceen kalluunkaas la soo harqinay oo magaalada iyo dadka iyo xoolaha iyo kuwii noo yimid cunay ma sha Allah nimcada ay saaran ee qarkaysa saaran ee magaaladiile ee badiile ee barigiile waxa aan leeyahay dee nin nasiib laba hela ma sha Allah waxaanu ka warhaynaa in shaqaaqadii halkan ka dhacday sida nagu maqaalaha arintaa la soo afjaray oo sinada kaliya loo sameeyay maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas ay u dhamaatay shaqaaqadii halkan waxa aan saaka arkayaa warna waxay igu soo gaarayeen waa la heshiiyey saakana waxaan arkayaa baabuurtii oo la qiimeynayo waftiyadii oo noo yimid TV-ga oo mahadsan oo wax naga duubaya arrintaas oo wajigii hore ah oo dhamaatay ma sha Allah iyada oo hawlgalkii dekada iyo wax soo saarkeediiba aan saaka muran ka jirin صح waxa aan leeyahay cid kasta ha ka soo qayb gasho ummadii Somaliland ee tubnayda gacmaha laabnay ha halkan labada gacmood la fidinaya ha ka soo qayb oo shaqo laga helay ma sha Allah adeerad magacaaga maxaa inaad ruux la yiraahdo deeq cali aadan adigu ma kulay odayaasha meesha aan ugu saaka kula kulmay baad ka mid tahay jooga saaka aan ceel garda kula kulmay kilibkaagana wuxuu gaari doonaa dhammaan intaas oo malaayiin oo qof reer Somaliland insha Allah bismillaah kariim
maxaad ugu baaqaysaa dadka reer Soomaaliland maadaama shaqaaqadan la soo afjaray si wanaagsan loo soo afjaray horumarkii iyo dhaqaalihii ina sida aad noo sheegteen ay meeshan ka bilaabatay oo aad leedahay shaqa ka abuurantay oo imka waxa soo rag oo joogabada ay ahaayeen rag markii hore shaqeynayay intii shaqaaqadan ay shaqadu ka taagnayd insha Allah imka arinta la soo afjaray gawaadhidina muurahoodii oo dhamaadeen lana sameyn doono insha Allah sida aan ugu maqala maxaad kula talin lahayd shacabka reer Soomaaliland qurbo dibad iyo gudaba ninka jooga ee faa'iidooyin ay halkan ku duugan ee aad oran lahayd laga faa'iideyso iraadir marka hore aad iyo aad baad u mahadsan tahay annagu waxaanu ahayn dadkii halkan yimi shilkan gaadiidka iyo waxaas ay ku dhaceen anigu waxaan watay gaadhigan khaasatan ayaan lahaa meesha sidii odayada horeba ay kaaga warrameen waa meel khayraadku aad iyo aad ugu badan yahay macquula baddii berrigii buurtii bannaankii intuba waa meel ay ku habboon runtii taas waa taa wixii kale odayadaa ka hadlay dadka reer Soomaaliland waxaan ku baaqin inay nabadooda iyo xasiloonidooda inay ilaashadaan waxaan uga digayaa tan oo kale meel kastoo Soomaaliland inaan dib uga dhicin iyo wuxuu agtoon insha Allah shaqaaqada imka halkan ka dhacday way soo afjarantay dadka fududeeya soo afjarayna ruuxantii annaga abu ahaa ma sha Allah annaga ayaa abu ahaa waxa weeye sababtu waxa weeye falkan markuu dhacay baan ka celin wax jawaab celina oo aqliga iyo maskaxdayada kaashana aanu kaashano isku maamulay alxamdulilaahi rabbil caalamiin tiiba saaka lagu wada jooga ma sha Allah dekada waad aragteen Soomaaliland wax ku baaqday horumar sax badiya bariba tiium bay kamid ma sha Allah intaan waan ku ogahay sax waa intaan kaga baxay assalaamu calaykum وعليكم السلام دمانتين aad baad mahadsantihiin insha Allah mar dhowna daawadayaal waxaan soo gudbin doonaa dekada qaabka looga shaqeynayay iyo waxa ay meesha ka soconayay qaabka loo doonayay loo faa'iideeyo oo looga sameeyo dekad kalluumaysi ama faa'iidooyin kale laga faa'iideysto sida badeecadaha yaryar maadaama dekedeena weyn ee berbera ay aad iyo aad adeegeedu u farabatay oo busy yahay oo ay hawsha ku farabadan tahay in waxa loo baahan yahay dhammaan badeena dheer laga faa'iideysto waxyaabaha yaryar iska ganacsiga yaryar fudud oo kale ay maxay tahay meelahan oo kale loo soo wareejiyo si dekada weyn ay chance u maadaama dekada imka wadamo waaweyn ay naga faa'iideystaan insha Allah bismillaah kariim waxaanu mar dhow tagi doonaa dekada laftigeeda raasiga la sameeyay raggan ay ka shaqeynayeen aynu inagoo soo dhaweynayno horumarka meesha ka soconayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin sida waxaynu aad iyo aad ugu mahad celinaa ilaahay arinta ku dhameeyay si wanaagsan maantana aynu rajeynayno in shaqadeena dib u bilaabato aad iyo aad baad mahadsantiin dhamaantiin assalaamu calaykum